السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo maqalka codkayga idinka soo gaadhay kuna soo dhawaada warbixin aan idinka diyaarinay duqa magaalada Cologne ee dalka Denmark Jon Peterson oo maanta la soo xiriiray idaacadda Radio Hormud si uu u gaarsiiyo fariin muhiim ah dhageystayaasha kala duwan ee ku xidhan Radio Hormud waxaana duqa magaalada Cologne waraystay Maxamed Amiin Siyaad Cabdi waxaana ugu horreyn weydiiyay fariinta uu dhageystayaasha u gudbinayo waxa ay tahay men vi skal have den smitte ned, og det skal vi hjælpes af med at få så som borgmester. Så vil det glæde mig rigtig meget, hvis alle bliver testet, hvis alle passer ekstra på. waa inaynu faafitaanka xanuunkan sida aynu la dagaalami lahayn meel uga soo wada jeedsanaa kamayr ahaana aad baan ugu farxi lahaa in aad dhammaantiin aad tijaabo iska qaadaan waxa kaloo aan soo jeedinayaa inaan la booqanin qof aad isleedahay xanuunkii baa ku dhacay ama qof aad isleedahay xanuunka ayaa si dhib yar loogu gudbin karaa waxaa kaloo habboon dhammaanteen in aynu ilaalino sharciyada xanuunka koronaha loo sameeyey ee aad intiina badani ka warqabtaan ama aad ogsoon tihiin Første opfordring, det er simpelthen skynd jer nu at blive testet. Tag op i Kolding Storcenter, hvor der er et testcenter, hvor man kan blive det lige med det samme. midda hadda aan dhammaantiin idinku dhiirigelinayana waxa weeye inaad hadda dhaqsataan oo dhammaantiin tijaabo ama testi iska qaadaan waxaana aad ka heli kartaan goobo furan oo diyaar ah oo idinkoo aan waqti ballansanin aad tegi kartaan oo aad isku soo tijaabin kartaan ama aad testiga iskaga soo qaadi kartaan waxaana ka mid ah goobahaasi xarunta Kolding Storcenter ama suuqa dadan ee magaalada Kolding Det er simpelthen min opfordring som borgmester til jer. waa taa fariinteeda ugu muhiimsan ee kamaayar ahaan aan doonayo in aan idinku dhiirigeliyo ama aan idinku wargeliyo in ma jirta ama suurtagal ma tahay in haddii aanu qof haysanin goob uu isku karantiilo in ay dowladdu ugu deeqdo goobo uu isku karantiilo Ja, og det er netop der, man kan få en god snak, der er det tage fat i beboerrådgiveren eller en af kommunens folk på det, fordi der er ha waa suurtagal waxa uu qofku la xiriiri karaa in qofka la taliyaha xaafadda ah waxaana loogu deeqi karaa qofka markaasi qof ka mid ah qoyskiisa uu xanuunkii soo gaadhay isla markaasi inaan haysanin goob isku karantiilo meel la dejiyo ayaa loogu deeqi karaa wax dhibaato ana ma laha isla markaa ma aha wuxuu qofku inuu ka xishooda ay tahay marka la xidhiidha la taliyayaasha xaafadda ee degan ama dadka kale ee shaqaalaha ee kommunaha ay garanaysaan si ay arrintaa idinka caawiyaan xaruntii dadku ay isku testigareyn jireen ee ku taalay xaafadda Skovien oo toddobaadkii hore furayd isla markaasina dadka xaafadahaasi degan ka agdhaweyd miyaa la xidhay Ja, i dag der er det sådan, at man har lavet lidt om på det, og med den nye kviktest, så man også får svar med det samme, men den nye, hvor man ikke skal have den der grimme lange pind op i næsen. Og der er det så, at indtil videre, så er det en tur i Kolding Storcenter ind i Strøgaden. ha waxbaa laga bedelay qorshihii testiga oo waxaa la sameeyey goobo kale oo dadka laga qaadi karo testi isla markiiba jawaabta ay helayaan sidoo kale xaruntii ama tijaabadii lagu sameynayay xaafadda Skovien waa la raray iyadana oo waxa loo raray dhinaca Kolding Storcenter markaa waxaan dadka ku dhiirigelinayaa in qofka degan xaafaddaas ee raba inuu testi ama tijaabo iska qaado in uu tago Kolding Storcenter oo ay ka furan yihiin goobo maalin walba furan oo uu isagoo aan ballan samaysan testiga iskaga qaadi karo waxaanay furan tahay saacaddu marka ay tahay 9 subaxnimo ilaa iyo 8 habeenimo in waxaan ku weydiin lahaa maayar magaaladii way xidhan tahay caruurtii iskuuladii may aadin muddo dheer xanaanooyinkii waa xidhan yihiin goorma sideedaba magaalada laga yaabaa in dib loo furo Jamen jo hurtigere alle bliver testet, jo hurtigere kan der åbnes op igen, så jeg håber rigtig meget, det kunne være på mandag, men det er det, alle kan hjælpe ved at blive testet, ved at være isoleret, hvis man er smittet, ved at overholde alle de her regler for, hvor mange man mødes med, og afstand og sprit og så videre. Så derfor kan vi alle sammen hjælpe hinanden til, at det hele måske kunne forhåbentlig åbne på mandag igen. waxay ku xidhan tahay sida inaku aynu isu testigarayno ee aynu u hubino in xanuunkii uu inaga baxay marka sida ugu dhaqsiyaha badan inaku aynu isu testigarayno ayay ku xidhan tahay in magaalada loo furo waxaana rajaynayaa inay noqon karto maalinimada Isniinta haddii aynu dhammaanteen iscaawino oo aynu istestigarayno iyo sidoo kale inuu qofku isla markiiba iskarantiilo haddii uu xanuunku soo gaadho
isla markaasina la ilaaliyo xeerarkii kale ee caafimaadka ee ka mid ahayd in la kala fogaado, in faraha isbiirtada in bakteeriyada disha la marsado iyo waxyaabihii kale la midka ahaa ee intiina badan aad ogtihiin. waa arrin ku xidhan dhammaanteen in aynu maalgelinno oo aynu meel uga soo wada jeedsanno si magaalada loo furo. marka waxaan rajaynayaa in la furi doono Isniinta haddii aynu dhammaanteen saas yeelno. kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Kolen oo maanta nala soo xidhiidhay. waa aniga iyo Maxamed Amiin Seedo Cabdi iyo guud ahaanba howlwadeennada raadiyo Hormuud oo idinku dhaafaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. xani haysan daruqaad isleeyay abadan ka tegayban ku dhaweey isleeyay hooyada xani haysan daruqaad isleeyay abadan ka tegayban ku dhaweey isleeyay ilma aanan dhalanban dhabta saar isleeyay waan idin dhaliilay waan idin dhaliilay waan idin dhaliilay